بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عنا وناكسن داودyaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka muuqaalka ciyaaraha waxaan kala aad kaga barteen aad ka daawataan Rajis Sports TV waa maalinimo sabtiya taariikhdan waxay ku aasaysan tahay 19ka bisha labaad ee February sanada 2022 qodobada barnaamijka aad kaga bogan doontaan waxa kamid noqonaya superstar-ka England Harry Kane oo ka hadlay mustaqbalkiisa Tottenham Hotspur xilli ciyaaryahanka la xiriirinayo Manchester City qodobada kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal aad ku daawan doontaan waxa kamid noqonaya naadiga Catanaanka ee Barcelona oo heshiisa 2 sano u bandhigeen xiddi ka tirsan Tottenham qodobada kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal aad ku daawan doontaan waxa kamid noqonaya tababaraha Chelsea Thomas Tuchel oo ka hadlay mustaqbalka Cesar Azpilicueta oo 32 sano jira ka oo la xiriirinayo naadiga Catanaanka ee Barcelona qodobada kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal aad ku daawan doontaan waxa kamid noqonaya naadiga Chelsea oo xiiseynaya daayirka Spain iyo Barcelona Gavi qodobada kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha aad ku daawan doontaan waxa ku jiri doona Real Madrid oo dalabkii labaad ka gudbiyeen weeryahanka Dortmund iyo Norway Erling Haaland qodobada kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha aad kaga bogan doontaan waxa ku jiri doona naadiga Crystal Palace oo shaaciyeen inay dhageysanayaan dalabada imaanaya koodii waa ciyaaryahanka ka soo jeeday Crystal Palace ee Wolverhampton qodobada kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha waxa ku jiri doona Donny van de Beek qadka dhexe Netherlands oo daneynaya heshiiskiisa amaahda Everton in joogto loo bedelo iyadoo ciyaaryahanka uu doonayay inuu sii joogo Cotton Baga oo bishii January heshiis 6 bilood amaah ugu dhaqaaqay qodobada kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha waxa ku jiri doona heshiiska Andres Pereira ugu dhaqaaqayo Villarreal oo ku dhow in uu burburo iyadoo Manchester United arrinkaasi khasaaro weyn ee ka soo gaarayso daafaca Spain daafaca Sevilla ninka reer Faransa ee Gundogan waxa uu shaac ka qaaday hadii Sevilla oo ka dhaqaaqay inuu daneynayo Premier League inuu u dhaqaaqo qodobada kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal aad ku daawan doontaan waxa ku jiri doona hogaamiyaha reer Argentina ee Leeds United Marcelo Bielsa oo diiday inuu ka hadlo mustaqbalkiisa Leeds United qodobadaasi qodobo kale oo ku jiraan kulamada maanta Premier League laga ciyaari doono Spain Serie Talyaaniga iyo La Liga ayaa qodobada barnaamijka muuqaalka ciyaaraha idinku hay saaxiibayaal oo aad ku daawan doontaan qayb ka noqonaya anigu Xasan Cabdullaahi iyo barnaamijka Instar halkaan kala socodsiinaya waana mar kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha ee Rajis Sports TV intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn barnaamijka muuqaalka ciyaaraha qodobadii aad daawateen hadii aan ku bilaabana tababaraha naadiga Barcelona ninka la leeyahay Xavi Hernandez ayaa wuxuu xiiseynaya ciyaaryahanka Cesar Azpilicueta ee ka tirsan naadiga Chelsea 32 sano jirka Chelsea ka tirsan ayaa waxa uu galaya qandaraaskiisa bilooyinkii ugu dambeeyay ee naadiga Stamford Bridge ku ciyaartay Chelsea Cesar Azpilicueta ayaa Barcelona u bandhigay heshiis gaaray 2 sano oo ciyaaryahanka dooq Westaal xilli ciyaareed inuu ku kordhin karo waxaana Xavi Hernandez oo doonaya in Cesar Azpilicueta oo soo dhaqaajiyo horyaalka dalka Spain ee La Liga dhinaca kale naadiga Chelsea waxa ay ku biireen kooxaha xiiseynaya adeega daayirka naadiga Barcelona iyo qaranka Loroja Spain Gavi oo 17 sano jira tababaraha reer Germany ee Chelsea leeyahay Thomas Tuchel ayaa doonaya in daayirka reer Spain ee Gavi kooxaha xiiseynaya Liverpool iyo Manchester City oo ku garaaco Gavi ayaa kamid ah xidigaha u soo baxay kubadda cagta waxaana oo ka soo aflaxay akademiyada xaanka Barcelona ee La Masia dhinaca kalena naadiga Crystal Palace ayaa waxay shaac ka qaadeen dhageysanayaan dalabada imaanaya Ivory Coast ciyaaryahanka garabka kaga ciyaaray naadiga Salzburg ku ciyaartay Crystal Palace ee Wolverhampton ninka reer Ivory Coast ayaa dalabyo ka helaya kooxaha u tankoona Premier League iyo horyaalka dalka Germany ee Bundesliga Crystal Palace ayaa doonaya in lacag kaash ay ku helaan Wolverhampton dhamaadka xilli ciyaareedkan xagaaga soo aadan daaqada kala wareega ee ciyaartoyda
dhinaca kalena ciyaaryahanka amaahda ugu dhaqaaqay bishii January naadiga Everton ninka reer Netherland ee Donny van de Beek ayaa waxa uu daneynayaa in heshiiskiisa amaahda Everton loo bedelo mid joogta Donny van de Beek ayaa doonaya in rajada Manchester United oo ka qabay ciyaaryahanka inuu dib ugu soo laabto soo gabagabeeyo Donny van de Beek ayaa haatan waxa uu dareemayaa Everton inay tahay halka kubadda cagta waayisa dib ugu soo celin karo idoo ciyaaryahanka uu dagaalamayo sida boos oo kaga heli lahaa xulka Netherland oo dhacdada ugu weyn ciyaaraha koobka adduunka ee sanadani 2022 bartamaheeda lagu balansan yahay dalka Qatar dhinaca kalena superstarka England ee Super Harry Kane ayaa waxa uu diiday inuu ka hadlo mustaqbalkiisa Tottenham Hotspur ciyaaryahanka ayaa wax laga weydiiyay inuu Tottenham ka dhaqaaqayo idoo Manchester City si weyn loo xiriirinayay daaqada kala wareegga ciyaartoyda intii ay furneeda 28 sano jirkaan ayaa sheegay in wili oosan go'aansan mustaqbalkiisa Tottenham inuu sii joogi doono inuu bixi doono oo hadalkiisa ku daray superstarka England iyo Tottenham Super Harry Kane in dhamaadka xilli ciyaareedkan oo ka fikiri doona halka xigta ee Tottenham oo ka aadayo iyo haddii Tottenham oo sii joogayo dhinaca kalena naadiga West Ham United hogaamiyahooda David Moyes ayaa waxa uu doonayaa in ciyaaryahanka qadka dhexe Declan Rice oo ku sii celiyo geeda London Stadium idoo kooxaha u tunka weyn horyaalka Premier League ee aad u xiiseynayaan ninka qadka dhexe ka ciyaaray 23 sano jirka ee kubadda joojiye Declan Rice Chelsea iyo Manchester United ayaana si weyn ciyaaryahanka mustaqbalkiisa u dabagalaya dhinaca kalena naadiga Barcelona ayaa waxa ay dib u soo cusboonaysiiyeen xiisaha Erling Haaland iyagoo doonaya Real Madrid inay kula loolamaan Haaland ayaa kooxaha u tunkan qaaradda Yurub ay ku raad joogaan waxaana majalada Spain laga leeyahay ku ramaysaa in Barcelona ay dambe ee ku biiraan raacdada loogu jira Erling Haaland iyadoo Real Madrid haatan majalada Spain laga leeyahay ku ramaysaa inay hogaaminayaan raacdada loogu jiro weeryahanka Dortmund iyo Norway Erling Haaland dhinaca kalena naadiga Arsenal hogaamiyahooda Mikel Arteta ayaa waxa uu doonayaa weeryahan dheeraad kadib markii bishii January Arsenal ee ku fashilmeen in Dusan Vlahovic iyo Alexander Isak ee soo qaataan Arteta ayaa sheegay in xalaaladka soo aadan Arsenal ay ku qasban yihiin weeryahan dheeraad ee soo iibsadaan bedelka Pierre-Emerick Aubameyang oo Arsenal si bilaash Barcelona ee ugu direen waxaana Arsenal haatan xidigaha bartilmaameedku ee ku jira weeryahanka Everton Dynamic Calvert-Lewin Arsenal ayaa doonaya in weeryahan ay soo qaataan idoo Alexander Lacazette iyo ninka reer England Nketiah ay ku jiraan bilooyinkii ugu dambeeyay qandaraasyada naadiga waqooyiga London ka dhisan ee Arsenal Gunners dhinaca kale tababaraha Leeds United Marcelo Bielsa ayaa diiday inuu go'aamiyo mustaqbalkiisa Leeds United warbaahinta England ayaa tababaraha hadalay inuu ka dhaqaaqi karo naadiga Leeds United Marcelo Bielsa ayaa shaaca ka qaaday oo sanadkii ugu dambeeyay heshiiskiisa Leeds United ka guda jira in wili oosan go'aansan in Leeds United oo ka dhaqaaqayo inuu sii joogi doono Leeds United ayaa xilli ciyaareedkan si weyn ee kaga jaban tahay oo qaab ciyaareed liita kulamadii ugu dambeeyay soo bandhigay naadiga Leeds United kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa la ciyaaraya kulanka ugu soo horeeyay 9kii barka geeska Afrika la daawanaya London Stadium waxa ku dhaxmari doona West Ham United iyo Newcastle United
idoo kulamada inta badan 12 maqribnimo geeska Afrika la daawanayo Brentford iyo Arsenal ayaa kamid ah Norwich City iyo Liverpool halka kulanka ugu weyn toddobaadkan kulamada 26aad ee Bangladesh Premier League oo yahay kan Manchester City iyo Tottenham u dhaxeeyo horyaalka dalka Spain Real Madrid iyo Deportivo Alaves ayaa kulamada ugu waaweyn ee maanta ka jira horyaalka dalka Talyaaniga Hellas Verona iyo Roma ayaa sarkay doona halka Fiorentina iyo AC Milan ee dagaalami doonaan inta ayaa saaxiibayaal ku soo gabagabeynaya barnaamijka muuqaalka ciyaaraha maanta sabdiya ani waxaan Cabdullaahi barnaamijka in saaray halkaan idin kala socodsiinay farsamadii kaamirada Umar ayaa iga saaciday inta kulmi doona amaanada